kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijyada imtixaanaha ah oo aanu maantana kaga hadli doono aragtida odayaasha beelaha iyo shacabka Yemen ay ka qabaan ururka Al-Qaacida waaxdiisa gacanka Carbeed ee fariisimada ku leh dalkan Yemen. inkastoo xilliyadii hore xubnaha ururka Al-Qaacida ay taageero ka helayeen beelaha dalkan Yemen tira aan yarayn oo shacabka ahina ay la dhacsanaayeen haddana aragtidaasi waxa ay si xoogan isku bedeshay ugu yaraan 7 sano ugu dambeysay xilligaas oo Al-Qaacida ay cirka ku shareertay howlgallada ay ka wado gudaha dalkan Yemen. falalkaasi waxa ay si isku mid ah u saameeyeen dhalinyarada Yemen iyo odayaal beeleedyada waana arrinta keentay in ay dib uga fiirsadaan taageeradii ay u hayeen Al-Qaacida. ururkaasi oo ka xumaaday kalsooni darridaasi ay kala kulmeen shacabka ayaa bilaabay in uu ku biiriyo liiska dhinacyada uu howlgalladiisa la bartilmaameedsado. shacabka Yemen waxa ay aad u hadalhayaan hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha dalka isla markaana saameeyay muwaadinka caadiga waxaanay sababta arrintaasi ku tuureen ururka Al-Qaacida waaxdiisa jasiiradda Carbeed. tusaale ahaan Al-Qaacida waxa ay bishii Sebteembar ee sanadkii 2013 ololiyeen warshada Balxaaf ee magaalada Cadan ee shidaalka sifaysa. warshadaasi waxa ay Yemen ka dabooli jirtay lacagaha shisheeye ilaa 90% waxaana wax soo saarkeedu 70% ka ahaa waxyaabaha ay Yemen dibadda u dhoofiso. si xoogan ayuu qaraxaasi u naafeeyay waxaana sidaa ku dhaawacmay dhaqaalaha dalka. dhaqaalaha Yemen waxa kale oo si aad ugu tiirsanaa dalxiiska waxa ku yaala 6 goobood oo ay UNESCO u aqoonsatay goobo dalxiiseed caalami ah. sanadkii 2002 iyo 2003 waxa uu dalxiisku Yemen ka daboolay kala bar dakhliga dalka. sanadkii 2012 waxa Yemen dhankaasi uga soo xarooday adduun dhan 800 milyan oo dollarka Mareykanka. laakiin hadda xaalku sidaa ma aha. goobihii ay dalxiisayaasha ajaanibta ahi tubnaan jireenna waa ay haawanayaan. waa kan Maxamed Arriimi oo ay noloshiisu dhanka ku tiirsanayd oo sawir ka bixinaya xaalka dalxiiska Yemen uu hadda ku sugan yahay. السياحة كانت من أول بشكل في صنعاء كانت متوفرة جدا. dalxiiska lagu yimaado Sanca xilliyadii hore waxa uu ahaa mid joogto ah. anigana waxaan garanayaa luqadaha Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Jabaaneeska. waxaan dhammaantoodba ka bartay dalxiisayaasha oo aan kaxeeyo. sababtoo ah dalxiisayaashu waxa ay Sanca ugu soo qulquli jireen si xawli badan. waxaanan ahaa mid isku filan, qoyskaygana waan ka biilanayay, dhaqaalahayguna waxa uu ahaa mid sarreeya. laakiin hadda oo ay yimaadeen argagixisada Al-Qaacida dalxiiskii si weyn ayuu hoos ugu dhacay. iyadoo dalku heerkaasi marayo ayaa waxaa jira ila dhaqaale oo Al-Qaacidadu si joogto ah dakhli uga hesho sida ururinta sakada iyo sadaqadaba waxaanay dadka u sheegaan inay lacagahaasi ku tabarucayaan dad sabool ah oo ku kala nool Soomaaliya iyo Falastiin sida ay sheegayso mid ka mid ah dhalinyarada u ololaysa guda ka cunaqabataynta ururkaasi oo la yiraahdo Xanaan Radmaan. ururka Al-Qaacida waxa ay Yemen dhaqaalaha uga ururiyaan iyagoo sheegaya in ay u qaybinayaan dadka saboolka ah ee ku dhaqan dawlado ay Falastiin iyo Soomaaliya ka mid yihiin waxayna ku iibsadaan daraasad uu soo saaray dhawaantan macadka daraasaadka istiraatiijiga ee Saba ayaa lagu sheegay in dhalinyarada Yemen ay dhabarka u jeediyeen Al-Qaacida sida daraadeedna uu aad hoos ugu dhacay koboca tirada dagaalyahanada ururkaasi. Mu'tasim Al-Qudsi oo ka mid ah dhalinyarada dalkan Yemen oo VOA-da la hadlaya waxa uu sheegayaa in aanu sinaba ugu qanci karaynin ku biirista Al-Qaacida. أنا لا أؤمن بهذا الفكر. anigu ma aaminayo fikirkaasi. wax walbo dhaca xataa haddii ay la yimaadaan wax walba sida maskax dhaqidda ay adeegsadaan oo kale iyo in ay dhaqaale i siiyaan inaan maalin maalmaha ka mida ku fakero inaan ismiidaamiyo ma dhacayso. waa wax aad u adag. anigu caqli ayaan leeyahay waxaanan haystaa diinta Islaamka oo aanan ahayn diin wax disha. ودين التسامح. ka sokow guud ahaan ururkaasi dadweynaha Yemen waxa ay hadalhayntoodu u badan tahay hogaamiyaha Al-Qaacidada jasiiradda Carbeed Naasir Al-Wixayshi oo la fahantiisa ka soo jeeda gobolada koonfureed ee dalkan Yemen. qaarkood si kulul ayay u weeraraan sida Widaad Al-Badawi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Sanca. هذا رجل لا يستحق أن نحن ninkaasi ma istaahilo inaan nuqadarino waxaana lagama maarmaana in si daran loo ciqaabo kuwaasi Yemen u bedelay Qandahaar
waxay fuliyaan falal iyo ajanda shisheeye oo beegsanaya danaha caalamiga ah iyo weliba kuwa gudaha taasina waa arrin walbahaar iyo xasilooni darri gelinaysa deganaanshaha guud iyo tan muwaadinka yemaniga ah halka sida ka muuqata hadalka cali almahdi ay qaar kalena isku dayayaan in ay waana u faraan kuna guubaabiyaan inuu falalkaasi ka haro jidka toosanna uu ku soo laabto sida ay rumaysan yihiin ناصر الوحيشي هذا الأحرى به أن يعود إلى الله عودة حقيقية. ناصر الوحيشي وإنه إله سيدب أقول لابتا ديجا ودادين ينا وإنا نكردقا وضو إله دوينيسا سببتو إله ما أقبلو إن لداديو ديك قف مسلنا سيداد مركا مسلم كشيغانيسا أديقو قريها إسلام كحوك كقليا دولكاغانا بابئينيا وتدمر في منطقتك المشكلة إنه يدمر في منطقته dhinaca odayaasha beelahana walow ay jiraan kuwa si gaara loo xijiyo dhanka alqaacida iyagana iska fogeeya haddana inta badan odayaasha beelaha oo iyagu dalkan awood sare ku leh waxa ay si cad uga soo horjeesteen ururkaasi iyagoo dhallinyaradoodana kaga diga ku biirista alqaacidada gacanka carbeed cabsi ay ka qabaan in ay hoog u horseedaan aawadeed sida ka muuqata hadalka sheekh xasan cabdalla oo ka mid ah odayaal beeleedyada gobolka Jawf oo VOA-da la hadlay حاولوا أن يجروا بعض الشباب waxay isku dayeen alqaacida inay dhalinyarada naga jiitaan laakiin waanu ku faraadeegnay maxaa yeelay waxaanu ognahay haddii ay alqaacida ku biiraan inay qabiilka baabi'inayaan يحطموا القبيلة ويحطموا المجتمع wixii midmadowgaasi soo kala dhex galay odayaasha beelaha Yemen iyo alqaacida ka dambeeyay waxa bilowday dilal loo geysanayo odayaasha lafahaantooda kuwaasoo lama taabtaana marka dhaqanka qabiilada Yemen la eego taasina waxa ay keentay in 2009 ay duqowda qabiiladu shirweyne ku yeeshaan magaalada Tansanca isla markaana ay ka soo saaraan warcad oo ay ku takoorayaan ururka alqaacida iyagoo amar ku siiyay mas'uuliyiinta ururkaasi in ay isaga baxaan dhulka ay beeluhu ka arrimiyaan waxaana si toos ah u bilowday hadallo kulkulul oo odayaasha ugu caansan Yemen warbaahinta u marinayaan alqaacidada gacanka carbeed Sheekh Salim Awad Abu Zayd Al-Khalifi ayaa tilmaamaya in fikradda uu ururkani la yimid aanay iyaga ka daadagaynin xilliganna aanay aqbalaynin in diintii ay weligood soo haysteen qaab cusub loogu dhigo alqaacida waxaanu u sheegaynaa inaannu inagu muslimiin nahay iyadoo aanay cidna nagu qasbin waxaana nahay dad dhexdhexaad ku ah diintooda waxaanan ka dhaxalnay aabbayaasheen iyo awoowayaasheen umana baahnin in maanta ay kooxi noo timaado oo ayna barto diinteenna iyo adduunkeenna arrintu hadal waa ay ka gudubtay waxaanay odayaashu bilaabeen inay abaabulaan dhallinyarada ay hoggaanka u yihiin guddiyo hubaysanna ay dhisaan waxaanay ciidamada dawladda ku garab siiyeen la dagaalanka ururka alqaacidada gacanka carbeed gaar ahaan kuwa gobollada bariga iyo koonfurta sida uu inoo sheegayo Sheekh Haashim Al-Jinaydi oo ka mid ah hoggaan dhaqameedka gobolka Tacis kaalin muuqatana waxa ay guddiyadaasi ka qaateen ka sifaynta ururka alqaacida gobollada Ebyan iyo Shabwa تنظيم القاعدة حاول التغلغل ururka alqaacida waxa uu isku dayay inuu soo dhex galo bulshadeena hase ahaatee waan isur taagnay inagoo sameynay guddiyo shacbiyeedyo hubaysan kadib markii aanu ogaanay in ay Ebyan galeen burburiyeen oo ay boobeen waxaana halkaasi dagaal kula galay guddiyo shacbiyeedyadaasi وتصدت لهم اللجان الشعبية qaybtii maanta ee barnaamijkan intaa ayaan ku hakinayaa qaybta xigtay aad berrito maqli doontaanna waxaannu ku soo qaadaynaa gulufka haatan soconaya ee hormuudka ka yihiin ciidamada qalabka sida ee dalkan Yemen ee ku wajahan alqaacidada gacanka carbeed inta xilligaasi ka horraysa waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah